dalkana qiimaadu hayso qulubtaadu ay lahayso qurbajoog haddii qiraay ku hayso qurbajoog haddii qiraay ku hayso dalkana qiimaadu hayso qulubtaadu. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. داود ريال كسو دوادا برنامج كله او هذا كبحا تي في بولشو حرنتي سوتي مغالده هرغيسا oo ah qalqadii labaad magaciisuna yahay qurba jooge xogogaalso dalkaaga kaas oo ujeedadiisu ay tahay in aynu dadka qurba jooga oo nolosheena kaalin weyn ku jira xagga tacliinta xagga dhaqanka iyo xagga waxtarkaba oo runtii ahaayeen dadkii lagu baxsaday xaalado badan oo adagoo waddankeena soo marayay in haddii biidmaayo maadaama ay hawadoodu imika higsigoodu iyo dalku soo noqod badankoodu marka la eego duruufaha ka dhacayo Yurub iyo Mareykan iyo Australia oo dadka badankiisu iska soo xamaam guranayaan waxaanu ugu talagalay inaanu bal qofkaas siino xog ama war hagaagsan oo isku haleyn leh oo qof professional uu bixiyo waxaynu dhaqan iskaga leenahay haddaad doonayso inaad soo guurto ama beeraad samaysato waxaad la soo hadlaysaa dadkii dee asxaabta ahaydeen iyaguna aqoonay kugu dhaamaan ma jiraan badankooda beertii marka dadka badankiisa jar baa laga tuuraa marka annagoo u tulayna waxqabadkooda ku qiimeynayna ayaa waxaanu u soo diyaar gareynay barnaamijyo waxtar u leh oo wax ku qaadan karayaan oo waxyaalaha iyaga khuseeya ee ay waddanka la imanayaan ama ay rabaan inay bilaabaan ama ay rabaan noloshooda inay ku bilaabaan in laga siiyo war sugan oo dhaxalgal ah. maanta barnaamijkayga waxaa igu martiya Professor Haliyey Maxamed Xaaji Raabi oo waddanka aad looga yaqaano oo la qadariyo oo runtii ah in af Soomaaligeena iyo luqadda af Soomaaliga naxwaheeda jaamacadaha waddanka in badan ka soo dhigay iskuulada buugaag badanna qoray ahna dadka af Soomaaliga waqtigan xaadirkee jooga inta wax laga weydiiyo ragga ugu muhiimsan maadaama af Soomaaliga qurba joogu ay carruurtooda ku dhalashaan halkaasi ay ku dhashaan oo tacliin ajnabiga qaataan inaanshahoodu wuxuu ku xiran yahay oo isweydiinayaan ama ka sii wareerayaan talow carruurtiinu siday ula qabsan doonaan tacliinta dhaqankii iyo dadkii marka Xaaji Maxamed ku soo dhow barnaamijkan adigoo mahadsan waqtigaaga qaaligeedna siisay ee aad u hurtay dadka walaalahayna ee qurba jooga ah inaad macluumaadkii aan ka siino halka luqadeena ay marayso iyo markay yimaadaan waxay la kulmi doonaan bal markaa intaynaan hawshaa u gelin bal waxaan doonaynaa taariikh nololeedkaaga iyo gaaban inaad wax nooga sheegto xaggeed ku dhalatay xaggeed ku soo barbaartay bal bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantahay Rashiid adiga iyo qoladan TV-guba iyo waxaan salaamayaa dadkayna dhageysanaya dhammaantii anigu waxaan ku dhashay
magaalada degmada sheekh waxaanan ku barbaaray intaan wax baranayay ama aan miyiga joogay inta u dhexaysa Burco iyo Sheekh dugsiga Sheekh hoose dhexe waxaan galay 50kii waxaan ka baxay 750kii dad macallinimo ayaan macallin baan noqday ilaa maalintaana macallinimo ku shaqeynay okay marka tababarkii aad qaadatay macallinimo bal wax nooga sheeg meelihii aad ka qaadatay iyo wadamada tagtay iyo waxaan tababarkii ugu horeysay wuxuu ahaa tababarka loolan jiray TTC waxa Teacher Training Center oo ka taagan tababarka macallimiinta xarunta tababarka macallimiinta waxa markaa noo madax ahaa nin la oran jiray Chef Maxamed Aadan Chef waxaan halkaa ku jirnay wax la yiraahdo barnaamij degdeg ah oo about 12 weeks waxa lagu tababilaad meelahaas dabeetana waxaanu noqonnay macallimiin dugsiga hoose ka dhigta markii dambena waxaanu nala siiyey tababaro la yidhaahdo tababarka on the job training tababarka shaqada goobta shaqada marka fasax tahayba fasax weyn oo dhan waxaana lagu ururin jiray ama Sheekh Maxamuud markaas waxaana la siin jiray kolba intii aan u baahnaanahay markaasaanu kolba ama dugsiga sare na loolan jiray ka dhiga ama dugsiga dhexe laakiin markaan dugsiga sare nimi waxa la furay tababar jaamacadeed marka tababarkii jaamacadeed waxa loo doontay dibadda laakiin kii jaamacadda ka horeysay NCT kii xamar laga furay National Teacher Training Center kaas anigu wali waan gelin ayaa isaguna jiray marka waxaan tagay 66 baan Mareykan tagay waxaan galay jaamacadda la yiraahdo Eastern Michigan University waxaan ka soo baxay 70kii waxaan imi xamar marka maxaad ku soo qaadatay jaamacadda soo baaqaday wax la yiraahdo luqadda Ingiriisiga luqadda Ingiriisiga baan ku soo qaatay oo la yiraahdo group major ama takhasuska sugaan iyo afbale markaa dabeeto waxaan ka dhigay xamar dugsiyadeeda ka dhigay ugu horeysaan dhigay wuxuu ahaa barnaamij la yidhaahdo Institutionalized Teacher Training Program markii xamar la tegayey hortee la tegi doono waxaan isku darsanay waxaa imtixaan laga qaaday wixii macallimiin joogay xamar oo dhan markaa intii gudubtay oo macallinimo loo qaatay maaha intii kale ayaa la yidhi hal la siiyo wixii ka dhiman si u galaan waxbarashada si ay u galaan dhigidda duruusta dugsiga dhexe ama dugsiga hoose waayahay marka halkaasaan aniga nin Ingiriisi tababar 6 bilood mar walba ayaanu siin jirnay marka halkaa 2 sanadood wasaaradana waan ka shaqeyn jiray marka waqtigaas waxay 66kii ilaa may waxay 70kii ilaa 72kii meelahaas 73kii waxaan ku soo wareegay hidda iyo tacliinta sare marka hidda iyo tacliinta sare ku soo wareegay 73kii waxaan qabtay barnaamij la yiraahdo barnaamijka tababarka af Soomaaliga ee ardada shisheeya waxa weeye Somali Intensive Program for Foreigners marka 4 Korean iyo 2 Chinese aan halkaa wax uga dhigi jirnay iyo 2 macallin oo kale maamulka barnaamijka waxa hay'ad kulliyadda beeraha ardada shisheeyaha ayna waxay aqal laga siiyeeyo cuntada dugsiga sare ee beeraha oo dhow aniguna waxaan ahaa ka mid ahaa macallimiinta la foole degan markaas marka inta tacliinta ku soo wareega aqal laga siiyey
kulliyadda waxbarashada la foolay okay marka dadkan aad waxbarayseen dad ku xidhneed booda wasaaradda beeraha caawinayay maya markii af Soomaaliga noqday af dawladdu ku shaqeyso ayaa wadamadii hanti wadaaga ahaa u baahdeen turjubaano markaasay khaasatan kuuriyada waqooyi ayaa codsatay in la siiyo in loo tababaro 4 arday af Soomaaliga loogu tababaro hawlahooda turjubaano ugu noqdaan waayahay dabeetana markaan 2 sano meeshii ku wadnayna ay sanadii horeba ka tarjumeena Chinese ka laba ku soo darsada dabeetana halkaa waxaan ugu wadnay 3 sano oo barnaamij degdeg ah oo af Soomaaliya foreign shayha markaan iyo 2 macallin oo kale ayaa halkaa ka hawl galay waayahay marka buugaag baan u qoray af Soomaaliya waxaan galnay lab magnetic tapes baan ku qabanay aan hadalkii ugu qabanay marka mar way dhageystaan mar way akhriyaan mar macallimiinta u sheekaysa waxaanu siinay maalintii ugu yaraan 8 saacadood oo af Soomaali markii kaas uu hirgalay ayaa la bilaabay barnaamij kale 76 barnaamijkaas wuxuu ahaa af Soomaaliga dugsiga dhexe iyo hoose waxa tababarka macallimiinta hayay dugsiga xalane oo barnaamij la yiraahdo BB ayaa jiray oo xalane ahaa waayahay barnaamijkaas wuxuu af Soomaaliya ardada wax loogu dhigi jiray ma ardada macallimiinta noqonaysa waa crash programkii BB garanaysan bar ma qaarkii meena ka soo bixin habka marka kuwa halka inta ay siraadaan waa ugu wanaagsan tahay iyo inama secondary ka soo baxay oo aan iyagu af Soomaali wax ku soo qaadan laakiin doonayay inay macallimiin noqdaan iyo qaar halkan laga doortay BB-da ayaana loogu iman jiray 60 arday ama 45 arday kolba intii la helo ayaa loogu iman jirtay la foole marka barnaamijkaas waxaa barnaamijka secondary barnaamijka dugsiga sare ee tababarka macallimiinta marka kaana waxaanu u sameynay برنامج صومالي وككوبان أفسد مادو أفر نحوه يأفر سوقانا وياهي تاريخ ذاس بدوين تا af Soomaaliga iyo suugaantii iyo naxwihii iyo waxa soo maaragtay cilmiga oo dadka u gudbinayseen oo aad ku soo baaganteen waqti dawladdii kacaanka ay u heelan tahay in af Soomaaliga hadday qoreen macallimiintiisi la soo saaro iskuuladiina la dhiso waa taariikh qiimo leh waana xanan nasiiba maanta iyo halka meel joogto waynagii dagaala iyo dhibaatooyin badan imika aynu soo marnay ee dawladdii burburtay watii dadku ay u qaxeen Yurub iyo Mareykan iyo Ameerika marka dadkii halkaa tegay xaaladda ku hadalka af Soomaaliga kulli adaa ugu xogaalsan ama taga ama haddii biimaayo wax laga weydiiyaa siduu yahay luqadeedii dadkii dabada masii haystaan oo ma ku adag yihiin mise nin walaaba meeshu doono ayuu kala dhacayaa horta bulshada marka saa loo eego waxa xukuma waa fikrado marka dadka qaar baa waxay qabaan inuu af Soomaaligu hoos u dhigay qiimihii waxbarashada inaga oo qura maahay wax laga yaabaa Afrika oo dhanba inay caynka qabaan marka fikradan lagu yiraahdo elitism inta wax baratay una nolosha xukunto oo hayso ayay ku salaysan tahay taasi dad kale waxay qabaan in arintaas ay tahay arin ku hufinaysa wajidkii ka kaxaynaysa oo nin waliba gacantiisu biyo kaga dhirga markaad adigu gacantaada waxna ku cunayso waxna ku cabayso oo macnaha inaad afkaaga waxna ku baranayso waxna ku qabsanayso
ayaa mid walba ka wanaagsan oo xor baa tahay markaas xoraa tahay laakiin haddii kale ood ku habaysan tahay inaad fikrado shisheeye iyo kutub shisheeye iyo garasho shisheeye aad ku xidhnaato dee waxaad noqonaysaa nin maskaxda laga haysto soo ninkaba suuqa ka nidhaahdo laakiin haddaad meel dhexdhexaada doonayso dee waa inaad eegataa afkaarta ka soo baxda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo dhan for instance ee ku gaargaraysan in nabad lagu wada noolaado oo khayraadka loo wada sinaado oo dee la badmaayo dee sharcigana loo wada sinaado marka taas waxay markaa ku garansanaysaa afkaagu qiimaha uu leeyahay buu ku sheegaya marka waxaa sharci ah oo ay soo saartay UNICEF iyo UNESCO iyo the international community oo dhami in inanku ilaa uu formative years waxaa la yidhaahdo markuu korayo ilmuhu inanku afkiisa maayaan af kale wax lagu barin haddii af kale wax lagu baro wuxuu isu qaadanayaa inuu qof daciifa yahay oo mar walba wuxuu noqonayaa ninaan kibriyaagiisu aan buuxin oo marka dee waxaan ku haray hadduu karan waaye arda mid kartay ayuu saa u eegayaa markaa wuu bahadilmayaa marka waxaa la yidhi lankaa laga ilaaliyo haddii af la baraayo waa in inanka waa child's right children's right bay ka mid tahay waa inaan af kale lagu barin afkiisaa maayo maxaa formative yearska dhacaya markuu inanku koraayo maxaa dhacaya waa marka la yidhaha majority age inanka inankii waa qaan gaaray markaynu nidhaahno maxaa dhacaya intuu inankaasu qaan gaarayo waxaa ku dhacaya la dhowr wax jirkiisaa isbedelaya oo koraya markuu laba jirka ugu bilaabmo afku markuu laba jirka ugu bilaabma qaar baaba yidhahdo ka horeeya marka yar uu qayliyo is yidhaahdo waxaad ka baxday noloshii hooyadii hoose oo dabasha u soo bixiyo iyo noloshan kale eeduu ku dhufanaya markaasay bilaabantara qaaruuranayaan laakiin waxaa kale hogaaminaya ereyga ugu horeeya marka muqawiniintu ay xisaabinayaan ereyga ugu horeeya laba jirku ku dhawaaqaya qaar saddex jirka qaar waxaa laga yaabaa inay kaba yara horeeyaan marka qaarba in bay dee waa biniaadmiga intuu kala yahay koritaankiisu ilaa afar jir lix jirka ayuu ku dhammaanaysaa ay ku dhammaysaa marka waxa weeye maskaxdiisa scanning qaadanaysaa marka markuu full scanning ay noqoto oo markuu lix jirka yahay iskaaninkana bal af Soomaaliya koritaanka maskaxda ee ku dhamaanayso afkaarta iyo dareenku wuxuu kaga baxayaa warku wuxuu kaga tegayaa maqalka afka taabashada ma garanaysaa dhadhanka waxa la wixii maskaxda channelska maskaxda siiyay warka dadkaasaa buuxsanaya oo maskaxdiisu noqonaysaa mid wax walba bulshada markuu dhex galo qaadanaysa manaha macallin hadduu tago iyo hadduu darawal suuqa jooga la kulmayo hadduu ilmo yaroo la filaho suuqa jooga la kulmayo intiiba wuu la falgelaya intiiba wuu la macaamili karaya markaasaad geynaysaa meesha marka su-aashaymuqadiisa uunbaa halkaa ayuunbaa anfacaysa marka badankoodu luqado kale ay wax ku dhigtaan oo wadanka hadday joogaan luqadiisay wax ku dhiganayaan dadka qurba joogga ah markaas sidee dhaqankeennii iyo af soomaaligeennii isku lamaanaa sidee taasi markaa u caawinaysaa ama ay u dhaawacaysaa dhibaatuu gelayaa ilmihii markaas dhibaatana dee waalidkiisaa la doontay waalidkiisana dee duruufihun baa ku kalifay soo maad garan marka markii dadkii halgankii ka mid ahaa ee qurbajo ee joogay wadamada dibadda qaar baa tashadayoo soo noqday oo wadanka ku soo noqday qaarna way tashadeenoo dibadday qabteen marka imika kuwan ka hadlayna waa kuwii dibadda qabtay dee kuwii dibadda qabtay mashaakil ka duwan kuwa xaggana walow kuwan wad soo noqdo ku dhow ay mashaakil leeyihiin mashaakilka xaggaasi badanaa waa dee mid luqawiya waa mid sooshiala waa mid wax walba leh marka innagana qoysaskeena inta badan
haweenkaa gacanta ku haya raggu inta badan ama shaquu ku maqan yahay ama faras magaalo uu tegayaa ama majlis buu iska fadhiisanayaa caruurta inta badanba warka ma hayo marka khaasa waxaa laga qaar badan oo waalidkoodu educated yihiin oo ay mutacalimiin yihiin ayaa haddana ubadkooda u warhaynin oo ay islaantu uga warroon tahay waa run marka reeraha kale ee taga khaasatan dee kuwa ka yimaada bariga asia kuwa ka yimaada iyagu dhaqankooda way ku adag yihiin way hayaan laakiin inta ka tagtaa africa dhaqankooda waa luus badan waxaana is yidhahdeen waxaad keentay meeshii ay ku noolaayeen meel ka fiican oo waxay aaminsanaayeen fikradan ninkii af ingiriisi ama af faransiis ama af carbeed wax ku bartaa inuu ka fikrad wanaagsan yahay ama ka aqoon badan yahay ninkii afkooda wax ku bartaa ama afkooda yaqaana okay marka haligay professor markaas siduu kii ku dhashay meesha inankii ku dhashay Yurub oo kale ama Germany oo kale iyo kii isagoo da 15 jir ama 20 jir galay iyo kii isagoo intuu miyi ku soo koray magaaladii soo maray haddana dhoofay oo xaggaa tegey saddexdaas qaybood siduu luqadii ay u kala taabanaysaa afkii saddex shayoo kala duwan ayay haddaan ka horeeyo kaa isagoo afna aqoonin tegey meesha markaan anigu tegey ingiriiska waxaa 1979 waxaan la kulmay nin ka tegey 1930 intuu markabka ka dhuuntay Iskandariya Boorsaciid baan lahay Boorsaciid ayuu isagoo imisa u dhaxaysa markaa adigu 60 ka soo qaad iyo 30 imisa u dhaxeeya 50 sano isagoo 20 jir markaa ka tegey 60 jir waa 70 jir marka afsoomaaligiisa markaad dhegaysanayso iyo kuma beeran si fiican buu Soomaaligiisa waxba kuma noqon oo markuu tuwa Soomaaligiisa maximize ayuu buuxay marka dhibaato kala ma kulmin af Soomaaliga wuxuu dhibaato kala kulmay dhaqankii uu la maamuli lahaa dadka af Ingiriiska ku hadla meelo kale ka taabanaysaa dhibaato laakiinkiisii way bixiyahay dee intay iskaranayaan ay suuqa iska heleen inay makhaadooda fadhiisanayaan kaas horta taasuu qabaa kii caruurtu la tegey ama kii isagoo maxaa tiri kii kale isagoo dhalinyaro tegey oo dibad ku guursaday meesha oo dibad ubad ku dhalay isagoo yar maagan ka tegey isna siduu luqadaasi marka isagana taa dhibaatadiisu isaga iyo caruurta dhibaataa qabsanaysa haddii aan waalidku gacanta ku haynin xaggaas marka laga tago inaga xaggeenna haddii aan waalidku gacanta ku haynin laba meelood baa ilmaha loo ogol yahay marka intaa intuu wax baranayo ilaa intuu secondary-ga gelayo laba meelood baa ilmaha loo ogol oo ilmaha labadaas meelna afar ku hayn waxa weeye hooyga guriga iyo dugsiga uu gelayo ilaa secondary-ga labadaas gacanta lagu hayaa gaaraha soo qaada special gaara oo gaari gooni bas gooni oo tababar gooni qaba ayaa soo qaadaya ilmaha marka ilmaha waxa la doonayaa loo faro dhexdood ka dhaco marka ama wuxuu ku maqan yahay iskuul dugsigii heer kasta ku jiray halkaas uu ka qadaynaya Soomaad garan oo ilaa laga soo qaado uu joogaya oo caafimaadkiisu halkaas ku xidhan yahay oo haday dhibaato qabsato halkaas uu ka galaya halkaas lagu galgaraya markuu guriga yimaado supermarketka keligii ma tagaayo waalidka raaca haddaanu dee isku filayn markaa oonu qofku noqon dee nin ma garanaysaa isagoo iska adag qofku innaga waxaa laga yaabaa ilmaha 4 jira inaan hooyadii iyo aabihii midna la soconayo dukaan wax ka soo iibi oo laga yaabo inuu mid yarooba meelaha ka helo oo waxoogaa ama ka qaado ama isaga alboodisada ama qaabboodisada waxaan kaas marka lama ogola laymanka in la galo waayo xuquuqda ilmaha ay ka mid tahay inaanu qof u naxayo maahay qof kale daanu gacanta ku haynin marka kaasuna taasuu qabaa ilmihii meesha ku dhashay isaguna mushkilad gooni u leeyahay haddaan guriga support ka helaynin gargaar ka helaynin oo xagga weliba waxbarashada
oonu aabihii dee nin dhaktara ama looyara ama macallina ama hooyadii mutacalimad ahayn ya oo dee af shisheeye weliba aqoonin oo afka meesha aqoonin oo duruusta loo soo dhigo aan gacan siinayn ilmihii markaa wuu daayacmaya waxaa loo dhibayaa waxaanu garanayna inta badan ka garanayna waalidkiina waxba ka garan maayo soomaad garan markaa qof saddexaad waa in la doonaa oon aabbiyo hooyo midna ahayn kaasaa markaa haddaad qofkii u qabato qofkaasi inuu cudurro iyo ama social ha noqdeen ama health ha noqdeen uu la yimaado baa daxadka markaas waxaan leedahay nasiib bay ku lahaan karayaan haddii gurigii aabbihii iyo hooyadii ay ku adag yihiin dhaqankeennii iyo afkeennii waxay u noqon karayaan kaab oo afaf kaleba wax ku soo dhigto laakiinse guriga intuu joogo wuu badbaadsan yahay haddaan aan afkeedii odagii habartuba haddaanay laba hadalba dee bulshadaasu ka mid noqonaya waa run ya soo maha laakiin haddii uu dhaqankii iyo afkii ay labada reerku ku adag yahay dee iyagu inay markaa wax ka qabtaan weeye dee iyagay u taallaa cid kale uma taallo waa yahay brofesor haddii biin maayo marka imika loo yimaado magaalooyinkeena iyo miyigii iyo magaalooyinkii waaba isku darsameene marka halkan la yimaado af soomaaligu isagu ka waran qaab dhismaadkiisii isku gudbintiisii naxwihiisii ilaalintiisii haddii biinmaay asluubtiisii xaggee la isla marayaa horta de markii af soomaaliga lagu bilaabay habka aynu hirgelinta af soomaaliga u marnay waa hab military hab military oo nin dowladda u shaqeeyey qof alla qofkii dowladda shaqo ka doonay xalala soo maraa xaladaa lasoo wada maray marka waxa weeye waa lagu soo nadiifiyey xaladana waa xaruntii tababarka militariga meesha tababarkii gacan military lagu soo wada mariyey disiblinka militariga lagu baraya ayaa lagu wada baray horumarinta af soomaaliguna arrin military oo camal ahayd waayo guddigii ugu horreysa af soomaaliga la sameeyey waxay ahayd 60kii oo waxaan garanayaa kuwii ku jiray gandi iyo musagaalba xogaya u ahaa macluumaadka u ururin jiray markaa riboort buu qoray riboortkaa wuu ku keliyeystay isaguma qoray waayo dee dadka waxaa la yidhi lacag gooniya laiyo shaqo gooniya laydin siin maaye idinkoo shaqooyinkiina haysta ayaa tanna wadaysaa markaa nin politiciana dhibaatay ku noqonaysa mar layihahdo shirkii baanu qabanay af soomaaligeeda kaalay isagoo ballan kale oo siinaysa defood ku jira markaa way wada habsaameen oo problem bay galeen adigu riboortkaas waxaa la iclaamiyey af soomaaliga maxaynu ku qorannaa marka waxaa layidhi nin walbaan bal waxaad soo qortaa alif bacda aad doonayso in af soomaaliga lagu qoro iyo mid reer koonfureed kaana waxaa lagu sameeyey akaademiyahanu maxamed cumar kaana waxaa qayb ka ahaa akaademiyahan uu sameeyey cumar geelle ismaaciil cumar geelle oo guddiga qabanqaabadiisa lahayd la magacaabay 40 guuradii af soomaaliga inaad xusantamaya 40 guuradii af soomaaliga waxa lagu qaatay Djibouti waa markaan aan kulay 40 madaxweynaha meesha isugu tagay markay iyagu dhamaysteen bay yidhahdeen kaa wixii ka soo baxa ayaan wax ku qabsanaynaa kii wixii ka soo baxayna guddigan uu sameeyey ismaaciil cumar geelle madaxweyne ismaaciil geelle ayay ahayd iminka wixii halka wuxuu taagan yahay niman island meelna maaha af soomaaliga meel laga xukumaa ma jirto laakiin casaa anta kale uu sheegan fiikum khayrun lakum waxaa laga yahaa helanad intaad aad nacbaysato laga yaaba in wixii ku runaabay tahay marka ingiriisku faransiisku wuxuu sameeyey guddida ah marka wax dhadhankiisa iyo dhiridiisu iyo kasidiisuba ahay af faransiis tahay mooyaane wax kale suuqa lagu sii dayn maayo laakiin ingiriisku muxuu sameeyey waa habtaa furan
waxa xukumaa markii buugka qora haddaad buug naxwaha qorto ama cilmiga afafka ha ahaad qorto afkooda ku qorto afkooda kaga shaqayso kaasunbaa macallimiintu odanaysaa wixii ay ka kasto macallinkii af ingiriisiga dhigaayay kaasuntuu akriyo ayuu wixii isaga waafaqo wixii aanu waafaqinna mid kaluu qorayaayo wuxuuna waxaa ma waafaqin marka xaalkoodu waa horumar ku salaysan waxa uu arko qofka qoraagii sax iyo wuxuu arko qofka qoraagiina sax daawadayaal iyadoo barnaamijkeenii aynugu talagalnay inuu socdo 35 daqiiqo waaf soomaaligii badweyn yahay oo dalal badan oo aynu jaarnahay ama aynu la kala wada degan yahay dadkii af soomaaliga ku hadlayay taariikh dheer uu leeyahay af soomaaligu wax qabadyo badan oo firiqsan uu leeyahay kuma soo geeyoonayno inaanu hal barnaamij aanu ka qabanno markaa waxaanu isla qaadanay inagii qolada farsamada TV-ga bulsho inaanu barnaamij labaad aanu ku xiriirino sidaa awgeed waxaan inaga codsanaynaa inaad la socotaan qaybta dambe ee barnaamijkaas soo gelaysa haddii aan la idhaahdo waqtigii caadiga ahayd haddii qiirahay ku hayso dalkana qiimaadu hayso qulubtaadu ay lahayso qurbajoog haddii qiirahay ku hayso qurbajoog haddii qiirahay ku hayso dalkana qiimaadu hayso qulubta